marka waxa u soo noqonayaa kuraasta hawiye dhallinyarada hawiye waxaan leeyahay la ceebow oo wixii dhacwa aragteen xaal maanta wuxuu marayaa waalidkii hawiye ee hooyinkii aabbayaashii inay maalin kasta bannaan baxayaan oo ay leeyihiin ilmahay nolol iyo geeraha naloo sheego wax u jawaabay wax wuxuu qabta la arag dhallinyarada hawiye waxaan leeyahay waxaad arkaysaan maanta in gobolkii dhammaa ee shabeellada hoose ee hawiye ahaa 90% iyo degaanadoodii aysan maamulka koonfur galbeed wax awood qaybsiya xaquuqa ku lahayn ayaad arkaysaan madaxweyne ku-xigeenkii hawiye ay lahaayeen xitaa lafta cabdicasiis lafta galeen waa diiday magaaladii baraawe eed ogeyd wixii ku dagaalameen ee ragga habargidir ay difaacayeen ee weligood ay ka talinayeen 40 sannadood farmaajo iyo nin laahdo علي فقي أمباستور علي فقي اللي هذا قدوميها برلمان كفر قربان نقضي إيو إلهي كمسة مديدة عبد العسلف تقرين إيا إنتي تشتينا توني لقصه هوية وحالة يريبا عبد الله حال نوح نقوه سجيرا فرش سنة حوق وانيك لوكاس دفاعي توني ولقود إلى لنا إلهي لما تابكر waxay dhaheen cali fiqiya ka shaqeeyay habar gidila taa xoog aan ugu haysataa waxa la handada yaa wiilasha habar gidila dhulka shabaabka difaacay ee u dhimanayay ee weligood cadow ka weeqay ee amni gacanta ku hayay yaa waxaad aragtaan maanta in qadiijo maxamed diiriye iyo fahad yaasiin ay nagu cashuurayaan iyo cabdiraxmaan beyle iyo ninka la yiraahdo cusmaan dubbe iyo mahdi guuleed inay nagu cashuurayaan nagu caayayaan oo nagu dilayaan gobolka banaadir waxaad aragtaan ceebta iyo dhibka nagu dhacday waxaa aragtaan in labadii maamul ee hawiye ee hirshabeelle iyo galmudug ay noqdeen maqaarsaar iyo waxaan jirin nahaynuhu aan lahayn oo qiimaysnayn waxaa la rabaa inaad soo doorataan waxaad lacag ka qaadan kartaan ka qaatee qofka aad aaminsan tihiin inuu qadiyadda deegaankiina iyo matalaad rasmiya idin samayn karo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ka hadlo kuraasta beesha saacad iyo kuraasta habar gidir iyo kuraasta hawiye oo dhalinyarada hawiye waxaan rabaa inaan baaq u diro oon u sheego cidda ay soo dooranayaan sawirna aan ka bixiyo waa haddii lay maqlayo oo wax la garto laakiin intaanan kuraasta hawiye iyo tan habar gidir iyo tan mataqaanaa sacad aanan ka hadal waxaan ka hadlayaa kursiga qofka jilibkayga ah aniga jilibka odow la yidhaahdo odow sacad aan ugu qaybsiga kuwaan wada leenahay hoose xildhibaanka ka imaanaya ayaan rabaa inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan u sheego dhalinyarada beesha odow ee gaalkacyo ka codayn doona iyo kuwa dibadda jooga ee isweydiinaya kursigaasi yaa qaadanaya inaan u sheega hadda kursigaasi qofkaan siinay inaan caddeeyo oon warkaa taabsiyo idhaahdo war hebel ayaa kursigaa annaga maanta siinay inaan dhaho ayaan rabaa laakiin intaanay qofkaan siinay idiin sheegin oon kursiga aniga daahir ahaan maadaama odaygii ama hoggaankii reerka aan ahay ama curadkii reerka aan ahay hadda curadaan ah soo ma haddaan nin maxamed daawuud ahay curadaan ah hadda curadkana xurma uu leeyahay qofka iga daba haashada waa iska hadlo ina iga ramooye waxba kama bedeli karo laakiin waxaan rabaa inaan taariikh idinkala hadlo waxaan anaga qorshaha suu yahay sida wax loo bixiyey iyo sida aan wax u kala qaadan doono iyo siyaasadda noo degsan ayaan rabaa inaan marka hore idin sheego dadka aan aqoonin odow ayaan rabaa inaan baro 6 beelood ayaa la isku yidhaahdaa odow oo magacaas ku abtirsada waa nimankii la reer nimcaale waa nimankii la reer jaraf waa nimankii la reer qudhaale waa nimankii la reer barqalle waa nimankii la reer cabdi waa nimankii la reer maxamed 6daas waxaa la isku yidhaahdaa odow jiilka cusub ciyaalka yarka ah saacad ama habar gidil ama hawiye waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan odowga muxuu yahay marka reer nimcaale reer jaraf reer qudhaale reer barqalle reer cabdi reer maxamed la isku yidhaahdaa odow markii reer cabdi reer maxamed laga reebana waxaa la yidhaahdaa culus saasay tagi marka kursigaas horeyaa loogu tartamay waa markii saddexaad ee kursiga beesha loo tartamayo nin rag dad badan baa soo doonta kursiga kow waxaa ka mid ahaa nimankii la reer jaraf kursiga waa rabnaa xildhibaankay dhaheen reer nimcaalna waxay yidhahdeen waa rabnaa nimankii la yidhahdo reer qudhaalna waa rabnaa saddexdaasaa ugu horreysay waagii shariif waagii xasan sheekh oo jooga andhaho raggaasaa soo ayir waa rabnaa marka xasan sheekh intaa la dooran waayo
shariif joogay oo xasan sheekh imaan rabay waa la hadlay anaa shakhsiyan la hadlay waxaan ku idhi war nimanka reer nimcaale iyo reer jalafow noo kaadiya kursiga nin reer qudhaalo ah oo odowo sacado oo sacad imaana hawiyo dhan wax u gala oo jaamiciya oo aqoon-yahana oo aan la heli karin ayaa noo hayaa oon aniga idhi waryaa isharax oo iga diida weliba oo la yidhaahdo cabdulaahi jaamac kaba weyne ilaahay u naxariistee adeerkay oo ninaan saaxiibana ahayn nin fiicanna ahaa oo dee taalanti ah wax barte ninkaas reer qudhaale aan kursiga xildhibaanka siino reer jalaf iyo reer nimcaale waa igu diideen waxaa la yidhi war adiga bixi karta kursiga reer maxamed aa ka tahay waxaa ka aamus war waxaan idhi kursigaasi waa bixi curadkiyaan nahay war curadkii haddaan nahay reer qudhaalaan kursiga siinay ninka reer qudhaalo magacaas uu ku abtirsadaaye markaas kala qaaqaadnee laakiin waa nin hawiye ah oo hawiyoo dhan kursiga ugu doodaya u daaya waa nin wax barto adduunkuna calaaqaad fiican la leh fahansan siyaasadda waxay tahay intaasoo jaamacad ka soo qalin jibiyey aan u dayno waxaa la yidhi u daymayno xaniyaha fuula waa iyo hatalkayo xaniyaha fuula dhahna waa la isu tegey sida caadiga ahayd markaas waxay soo bilaabatay codaynta waa loo codaynayay reer nimcaale ergey lahaayeen reer jalaf ergey lahaayeen reer barqalle erge reer qudhaale erge reer cabdi ergo reer maxamedna ergo reer maxamed iyo reer cabdi iyo reer barqalle waxay codadkooda afka uga shubeen ninka la yidhaahdo ninka reer qudhaale cabdullahi jaamac ka weyn ee been naxariistay ayaa afka looga shubay shabab waa loo codeeyey wareeggii koowaad reer nimcaale cidkaa loola kacay gabadhii ka socotay u tartamaysa kursiga wiilkii reer jalafe kii reer walaas yimid kii reer jalafe ahaa cabdikariin khaliif cabdulla dhalac cidkaa loola kacay waa laga codeeyey markaasuu waa dilaa wallahi bilaa tala waxaan dilaa war cabdikariinna waxaa dili karta malina warka cali cabdikariinna waxba dhiiggaas ku harin waa run laakiin waa lagaa mudanya maanta reer qudhaale kursiga siinay curadkii odoowaa nahay war ka daa baasha cabdikariin maya wallahi na xaba ku dhiftaan doone muxuu iga soo baxay intaad layha waxaan ku yidhi adiga kula hadli mayna waxaad dili karta dile jaw saasoo cabdullahi jaamac ka weyniyey kursiga odow xildhibaanka ku helay waa nala soo hadleen mar dambe ina qalif dhalac cabdikariin qalif dhalac iyo aabihiiba waxaan ku dhahna xogaaba soo miirsateen haa haddii reer jalaf ay idin raacsan yihiin oy ogol yihiin inaad matashaan oy kursiga reer jalaf rabaha nala soo hadlaan waa leen siinayaa sanadkan 4 sano idinkaa leen siinayaa weliba lacag baa la kala qaadanayaa kursiga waa ogtihiin ergada waa la kala gadanayaa waxaa idin ballan qaadanaynaa reer cabdi iyo reer maxamed cod idinka gadamaan reer jalafo waa leen siinayaa wixiina kale idinka shaqda maxaa xushmaynaynaa reer jalfaa soo hadlay waa la xushmeeyey waa la isu tegey waxaa la go'aansaday in odagaa khaliif cabdidhalac ma taqaanaa oo nin marka horena ma taqaanaa waqti badan ku baxsho wiilkiisu inuu noqdo xildhibaan heli waaye ah oon u diidno codki in la xushmeeyo in magaca guud ee reer jalafna wax lagu ergado sida reer qudhaal aan wax ugu erganay oo abaal aan gashanno oo reer cabdi iyo reer maxamed ay codka siiyaan ay ugu shubaan reer jalaf adaada la isugu tegey mahasala lacagan ka qaaday axmed macalifa lacagan ka qaaday mustafa luxulo lacagan ka qaaday waxaan ku yidhi intaasoo lacagay ninkaas musharaxa noo ahay odow cabdikariin dhalac siiya waa siiyeen abaalkaas oo u hayaa nimankii reer qudhaale iyo nimankii reer nimcaale oday adeerkeena oo aadmadoobe layihahdo guddoomiyaha budbud ah ay soo qaadeen oo xanuunsanayay aada keeneen waxay yidhaahdeen ninkaana nabadoon u ah reer maxamed oo qolada ani ka dhashay urfadan ka dhashay ninkaana u ah waa la hadlay liibaan axmed xasan liibaan shuluq iyo ninka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug ahaa iyo cabdikariin xuseen guulad iyo kii doorashooyinka federaalka iyo waa u sheegay inaan xoog nagula dayin garaad qorweyne iyo maxamed siciid dare iyo xoog nagu dayin nabadoonka reer maxamed rasmiga ahay ayaa la qoray kaararkiina ergada reer maxamed waa la siiyey reer cabdina sidoo kale nabadoonkooda loo qoray ergadina waa la siiyey boobkii iyo damdamtina meesha waa ka baxday reer cabdi iyo reer maxamedna cabdikariin khaliif cabdidhalac bay ugu shubeen codka iyagoo ana $1 ka qaadan $100 ka qaadan wixii ay reer jalaf laga rabeenna waa la siiyey xildhibaanna waa noqdeen
وأشياء وحن كويري نيو قاضولا هاجرتي ما كدمنا أدوون عبد الله يوسف يالش شقيري شريف شيخ أحمد لي ما يا عبد الكريم وأنا وحقبة كرتو لكن أنا واقو قنعنا أنا واقو قنعنا رير جلفنا ولا قنعنا إن نطل شري ما دام الرياق ولا الكرسي للسي ما أنت اللي جود دين واقع وحالات مع عبد الكريم قريب عبد الدلع إنك اللي قلب حور عبد القادر قلب حور يحس كورنيل عبد القادر قلب حور يقول دلع يو حالات تمي نك اللي يرادو حس كورنيل وهن معاه hortoodu ku qaatay kursiga xildhibaankii federaalka badu u matelay ayuu noqday marka anagu lafteena loo fiicnado nimanka ayaga xogay waxaan jeedinaa meesha anagu lafteena saameyn ku dhexleenahayo kursiga odow aan sanadaha dambe anaga aan maamulayno adugu calay xal ka qodal kursiga xilliga soo qaateen reejaafna waa soo qaateen haddii haatan jiraan hadda 4 sano cusub haday jirto qof reer jalfa iyo ma qof reer qudhaalaha isla kursiga dib u helayo odood ku matale anaga ha qaataan anaga qaataan anaga ayaga shaqaale u nahay adooma u nahay hay maadaana ha qaataan afcala loogu sheegaya aniga daahir abdullaah ala soo roob la gaada la guusa weyna tirtiniya u sheegaya idin siimayno cod leedo odowna cod ku bixime lacagtaada hayso walaalo في عبدنا كرسي مربيو حلبان مشرح وما تاعنا ري محمد كرسي مربيو ري قول الرجال في هوري سو قاتين كرسيغاسي وحو دخيالا او ان تضبات كان كلا سارينا سين معاله iyo reer barqalle qof aan siin lahayd kursigu wuxuu soo dhexiyaala reer nimcaale iyo reer barqalle qofkii la siin lahaa xildhibaanka 4 sano ee soo socota la hogaaminaya ayaa ma taqaan dhexiyaala codka hadana anagu عرض كرهير كنا كي لسكو راعو عيان سينينا ري عبدنا كاس سينيان ري محمد كاس سينيان وعكلنا وانه يمهمه يمشمش حديث اي جترك مدح كور تاغيو امنسن ان waxaan sheegay ay beeyihiin dadkuna waa documentary kii hore dubnayna wallahi oo aan kii ka weynaan ka hadlayna wuxuu ku jiraa video ka weyn ka qudhaala indhaha hala siiyo codkana oo saaro kala u hadlayna يوتيوب كي فيسبوك كجرا كذا سكرتان كي قليف عبد الكريم قليف عبد الدلعنا ماشو كجرا أدو أنكل هاللاي كان حدا عن دوبا ينك عصوا يشيك دونه حدا أفكي كشيك دونه أنكو سينا إنه كرسي حلبان كبيش أدونا برتاسو دو كجرا مك دورشة على كده بدو داوضة هذا الجيران ده استعجبني يو ليش لبار هيرو خش عمر هيجرا فعمر هيقول لا أوله كرسي أنا قاعد كمان بهن أنا قاعد كان سين نواقع لك أنا ولا عيان وضنا لا حتى يكا قصارنا لي حدادي دمتاي صبح كاله امو ماشو عدك امو فرماجه هيا لغا قادنا امو احمد قرقور هيا امو قف كale insiinaya soo ergo odow laga ma rabo codka ad ku soo bixis xijaal xildhibaan doone ha imo halkaas lagu kala baxaya waxa soo haray labada reeraan sheegay ka dhawaajiyay reer nimcaale iyo reer barqalle ee kursiga al rabo قربا لا يدكتي أنا كرسي وحان لها بلن أي بلن بين اللي عبد الرحمن أحمد حسن أو ربك الله أيان ربي أنا ولي بحوق أو ريحضه ونكاسان أنا أحد لك علي بلن لك علي وحان ربني إنه صارت كان كرسي عبد الرحمن أحمد حسن أو فريست لكن نانكي هن معالي إيو ساعد ريودو كلا تقربا ينور اكتوم حيدهن ربك الله وسير كي مدحتوه قلمودنا إيقا هستان xildhibaankii galmudugna iga haystaan maxamed culuq gala haysta wasiirkiina Umar Shidaa haysta waxay dhaheen nama qabato inaad tiraahdo xildhibaankii federaalkana waa kula tartansiinaya ina saan tiraahdo daahiro oo tiraahdo xildhibaankii federaalka reer barqalaan siinaya sanadkan 4 sano nama qabato ay dhaheen rimaal waaya yaa u wada kursiga Cabdiraxmaan Axmed Xasan لكن هذه اللي وايو أي ساسي لهذين كرسي جيان ما أنت ودنا كرسي ما أنت وحن ودنا إنا سينو محمد سعيد يا ريت قف كلو هنا على وقت تسكلوا من قف كلو أذو وقت تسكلوا مني كان محمد سعيد رأى أنا اسمنا نقان نين أضيء وحبر شدة كشقي تجان كشقي إنه يهان أجهي هدون نوف في نادنا وقير هدون نوف مادنا وقير وحا إن نجرب أن وحنا كان نجرب حلبانا وأفر سنوات وحاسيننا وين من الرنم عالي وطلقين وطلق ما أنت نوع تونك وين
noogu aqoonta badana waa walaalaheen wey dad aan walaalnahay weeye wax suquurkana wax ugu qurux badan wey marka annaga waxba kuma xeeran maxamed siciidare annagu reer nimcaala wax ku xeeranay kursigan reer nimcaalaan siinaynaa xildhibaan maxamed siciid yaraan rabaa inaan idhaahdo oon la hadlo toddobaadkan kala saare cabdiraxmaan la hadlo hadduu iga yeelo waa cabdiraxmaan waa wiilkaygii waa saaxiibkay cabdiraxmaan axmed xasan kuma dhinac ordayo laakiin waxaan rabaa inaan idhaa cabdiraxmaanow reer barqadii xoogaa xili lahayaan xildhibaanka galmudugna ayagaa haysta kii mataqaana wasiirkii galmudug madaxtooyadana ayagaa haystaan xilal kalena way hayaan nimanka reer nimcaala cabashadaasay keeneen abtii macaan lacagtii kaa baxday wixii qarash kaa baxay campaign iyo ayagaa ordaysay iyo gogol dhigasho iyo maxamed siciidaan saa uga qaada dadka qaar lafta maxamed siciid lacag kama qaadi kartaa caaso maxamed siciid waa lacag jecel laakiin waa ka qaada halle wiilka reer barqadle lacagtii u celi waana hubaa saa u maraysan maa maxamed siciidare markaan la sheekaystin xoogaa iska macquula laakiin anu hal dabeecada aqoon oo dadka qaar ama dad ugu tolo ama sacada ama reer odow ay rabaan aniga ma aqaano aniga waxaan aqaanaa qofka xilka doonaya ee aniga igu matalaya inaan aniga iyo dadkayga wax siiyaan oo isaga lagara qabto wax loogu daro wax uu haysto ee qofka wuxuu haysto in laga qaado oo la kufiyo oo la dhiig bixiyo aniga ma aqaano gurigaas dabacaas dhiig gelin mayo shaqana kuma lihi haddaan waxba u heli karin maxamed siciid yare inaan kufiyo oo dhiig bixiyo oo dadkii soo wacay maantaas oo dhawaa soo waca maxamed siciid saas yeeshay lacag ka qaad aniga weligeena wax ma weydiisan lacag lagama rabo haddaan lacag u baahan yahay dhulkayga ogadaho tayda meelaha ku jirtaan wax ka siinaya laakiin wiilka cabdiraxmaan axmed xasan wixii dee ka baxay hadduu iga yeelo waay cabdiraxmaan maxamed siciidana ka qaadayna wuu taqasban bixiyaan la lacagta wiilka si waa kaa reebee si uu wareega koowaad ba loogu kala baxo uu maxamed siciid yare wareega koowaad ba ragga kaas ka yimaadaan oo loo baahan yahay rag ewel malxiis uu samaysan haddii lagu tasan maayo ha la yimaado laakiin waxaan rabaa wareega koowaad codka reer maxamed iyo codka reer cabdi iyo codka reer nimcaale iyo codka reer jalaf iyo hal meel intay wada galaan maxamed siciid dhag lagu siiyo xildhibaanka odow saas oo maxamed siciid ku noqdo yaan rabaa reer barqad lama raba inay meesha maqlaadaan haddii qof reer barqad kale oo cabdiraxmaan ahayn uu damac jiro meeshan ku sugaynaa u baahana haddii qof reer ku dhaalaa bartan ku sugaynaa dhalinyarada waxaan leeyahay waxay nimankaas wataan hadduu ku yaamo sharax reer barqadlaa ka qaado wax wato ka qaado waa askar xaqaaga waay hadduu mid reer jalaf ku yimaado taas waa xaqaagiiba reer ku dhaalna hore xaq ugu leh ka qaata sanadkan waxaad aragtaan ka qaata codka idinkugu faatixiyey faataxa laydinkugu daray laakiin codka for fight wareega koowaad maxamed siciid yaraan siinaynaa kusoo baxaya ninka ani jaamacadiga eryi lahaa iyo qofka cadaaladdan falay iyo wanaagga aan samaynayo xumaan iga qaado laheedu cid ka soo dumi waxaan saa u samaynayna waxaa weeye kursiga in laysku haysto maalin kursiga waxaan doonayaa maalin bay reer ku dhaal soo qaateen maalin bay 4 sano kale reer jab soo qaateen 4 reer nimcaala qaadanaya dowladnimo meeshaan kama muuqato badanoo qof iyo cod aan iga muuqato kole toba in la gaari doono 4 sano haddana sida un bay noqon doontaa marka dambana aan siina reer barqad laha qaataan marka xiga reer cabdi aan siino reer maxaadkan ka dhashana qolada ugu dambaysa ahaato saa inuu kursiga noogu wareego oo qoloba ay 4 sano qaataan rabnaa ma aane nin ismahadiyo yiri anaa ku noqnoqsanaya soo noqnoqotay ma naqbaa ku daay ana ku noqnoqsanaya laan dheeraan ah waayo ku noqnoqsada ku noqsan karto waxaan rabaa reerka odowna waxaan intaa hadda u sii sheegaya uu dhiirnaan leeyahay kursiga maxamed siciid aan siinay nin baa laga hayaa rag baa isbarayaa berito hadduu ilaahay yidhaahdo markii ay dhacdo doorasho dambe kursiga odow ayaan rabaa odaga odow inaan ahay inay ogaadaan oo kursiga ninka bixinaya kuraastaan kale dabca saameynaan ku leenaha ama tan hawiye ha ahaato ama tan habargidir ha ahaato ama tan sacad ha ahaato kuraastaan kale saameynaan ku leenaha saameyntaas laakiin tan waxaa weeye waa saa ha la yeelo iyo tawfiiq iyo go-aan weeye marka waxaa usoo noqonayaa kuraasta hawiye dhalida hawiye waxaan leeyahay la ceebow oo wixii dhacwo aragteen xaal maanta wuxuu marayaa waalidkii hawiye ee hooyooyinkii aabbayaashii inay maalin kasta bannaan baxayaan oy leeyihiin ilmahay nolol iyo geeraha naloo sheego wax u jawaabay wax wuxuu qabta la arag dhallinyarada hawiye waxaan leeyahay waxaad arkaysaan maanta in gobolka dhammaa ee shabeellada hoose ee hawiye ahaa 90% iyo deegaanadoodii aysan maamulka koonfur galbeed wax awood qaybsiya xaquuqa ku lahayn ayaad arkaysaan
madaxweyne ku-xigeenkii hawiye ay lahaayeen xitaa cabdicasiis lafta gareen waa diiday magaaladii baraawe eed ogeyd wixii ku dagaalameen ragga habargidir ay difaacayeen ee weligood ay ka talinayeen 40 sannadood farmaajo iyo nin la yidhaahdo cali fiqi ambassador cali fiqi la yidhaahdo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed noqday iyo ilaahay kuma sama diiday ee cabdicasiis lafta gareen iyo intay tashteen tunni lagu soo hubiyay waxa la yiri Cabdullaahi Xalna wuxuu nagu hoos jiray 40 sano xoog waa ninkay dhulkaas difaacay ee tunni ay weligood ilaalinayay ee dhahay lama taaba karo waxay dhaheen cali fiqi ka shaqeeyay habargidir taa xoogan lagu haysataa waxa la handadayaa wiilasha habargidir ee dhulka shabaab ka difaacay ee u dhimanayay ee weligood cadow ka weeqay ee amni gacanta ku hayay yaa waxaad aragtaan maanta in qadijo maxamed diiriye iyo fahad yaasiin ay nagu cashuureen iyo cabdiraxmaan beyle iyo ninka la yiraahdo cusmaan dubbe iyo mahdi guuleed inay nagu cashuurayaan nagu caayayaan oo nagu dilayaan gobolka banaadir waxaad aragtaan ceebta iyo dhibka nagu dhacday waxaad aragtaan in labadii maamul ee hawiye ee hirshabeelle iyo galmudug ay noqdeen maqaarsaar iyo waxaan jirin nahay nuh aan lahayn oo qiimaysnayn waxaa la rabaa inaad soo doorataan waxaad lacag ka qaadan kartaan ka qaatee qofka aad aaminsan tihiin inuu qadiyadda deegaankiina iyo matalaad rasmi idin samayn karo hawiye qofkaasaa laga rabaa waxaa kaloo niyada hawiye laga rabaa inaad xoogga saartaan inaad ayaas ku saartaan musharaxiinta hawiye sidii ay hal musharax ugu tanaasuli lahaayeen musharax adag oo dadkan matali kara oo aan berintana loo adeegsanayn oo aan ahayn nin aad mataqaanaa dhahayo qabiil baa la dhahayaa gobolka banaadir maqaamka gobolka ma hadli karo xaqaa ladina inuu sii karo midaan dhahayn oo gobolka u hadlaya oo gobolka cadaalad u falaya oo hawiyenimadiisu ay caddahay inaad isugu tagtaan ninkaas aad ku qasabtaan musharaxiinta kale hawiye inay u tanaasulaan haddii diidaanna inaan xoog iyo xoolo garab istaagno musharaxaas hawiye kaa isleedihiin waa fiican yahay xildhibaanadana kaa isleedihiin dadkan iyo deegaankan uu matali karaa ayaa laydinka rabaa hawiyow dhallinyaraa tihiin 75% baa tihiin inaan gumaysiga ka qaada dadkeena laydinka rabaa wixii dhexdeena ah ee yaalla ee isriix iyo kala riishaha weligeed bay soo jirtay wax micna ku maraysan laakiin danta guuntaa fiirsaan dhallinyaro hawiye ah oo qadiyad leh soo saara odayaashana naga dhaafa senator ha nagu soo dooranina xildhibaanna ha nagu soo dooranina oday naga dhaafa oday waa barka beele rag dhalinyaro ah oo diyaara oo qadiyad deegaanka difaacaya oo la iibsan karin oo wax bartay kaan shilinka haysan lacagta u aruuriya idinka ka bixiya hoteelka wixiga kuwaa noo sharaxa kuwaas noo soo doorta kuwaas la shaqeeya oo hiil iyo hoo hala garab taagnaado si aan dad jiro u noqon haddii kale weligeyn noqon mayna dad jira nooca hadda aynu nahay ee liidmada ayaan ku noolaan doonaa ilmaheena inta iskuulada jaamacadaha laga qorto ayaa Eritrea laga iibin doonaa Ethiopia laga iibin doonaa oo dagaalka Tigray laga geli doonaa oo muf looga dhigi doonaa cabashada hooyooyinkeenna lama dhageysto doono ma weligiina aragteen waalid inta la eego hooyooyin aabayaal banaan baxayo oo nin sheegana madaxweynaha Soomaaliya iyo taliye ciidan iyo wasiir cadaalad uusan u jawaabayn ma weligiina aragtay yasminta la eeg yasmati ugu xumed mata waxa lagu adeegsanaya qorqor iyo cali guudlaaw mata iyo Umar Firish حساب بالإسكان ربها الحسابتهم داير على سعودية دبش كده أمر ثانية عسيسو أنت عن كل مدة برنامج كواعي يقول أنت بلوي تهوية برنامج كلام ده بلنت إنه عاشقه دبش كده أمر ثانية عسيسو هابي قيس